qaybtanada saddexaad ee maanta barnaamijkan aan ku soo bandhigayo taariikhda magaalooyinka dalka waxaan uga warrami doonaa magaalada Isku Shuban. deegaano dhaca Puntland ee taariikh leh iyo boqortooyadii ka aramin jirtay anigoo Cabduqaadir Maxamed ayaa soo saaray idinana socodsiinaya. intaan u gudagalin barnaamijka subscribe saaro channelka si aad u hesho macluumaadyada kale ee inoo xigi doona. Isku Shuban waa magaalo yar ee taariikhi ah waxa ay ku taallaa gobolka Waqooyi Bari ee Soomaaliya. sidoo kale magaaladani waxa ay leedahay fariisamayaal taariikhi ah ee ay lahaayeen boqortooyadii Majeerteen. 80 kiiloomitir ayay u jirtaa magaalada Qardho. magaaladan waxa ay caan ku tahay biyo dhaca iyo harooyin ay leedahay. meel loo dhan yahay oo lagu dhan yahay istixgaalin bulshada dhabti waa Puntland. meel loo dhan yahay oo lagu dhan yahay istixgaalin bulshada dhabti waa Puntland. saldanadii Majeerteen waxaa la hirgeliyay 1600 waxa ay ahayd boqortooyo Soomaaliyeed oo ka soo jeeda qabiilka Daarood. Cusmaan Maxamuud waxa uu ahaa wiilkii Maxamuud ibn Yuusuf oo xukumayay saldanada intii u dhaxaysay 1644 ilaa 1660. sababo la xiriira shilal joogto ah oo ka dhacayay Waqooyi Bari ee Gardafuul ama Raas Caseer, boqortooyada Majeerteen waxa ay heshiis aan rasmi ahayn la gashay Ingiriiska, halkaas oo uu Ingiriiska kula heshiiyay inuu boqortooyada siiyo kab dhaqaale sanadle ah si loo ilaaliyo shaqaalaha Britishka ah ee ku burburay maraakiibta iyo burburka ku dhacayay xilligaasi maraakiibta ku soo mari jirtay marin badeedkaasi. si kastaba ha ahaatee heshiiska boqortooyada ayaa ahaa mid aan la xaqiijinin maadaama Ingiriiska uu ka baqay inay boqortooyadii Majeerteen ay ku balaadhiso awoodeeda. magaca Gardafuul waxa uu asal ahaan ka soo jeedaa luqadda lagu magacaabo lingua franca, taas oo looga hadli jiray marin badeedka ugu weyn ee ganacsiga adduunka ee Mediterranean-ka dabayaaqadii qarniyadii dhexe. micnaha ereygan ayaa fasiraya fiiri oo baxso, taas oo ka turjumaysay marinka Gardafuul oo ay ku baabi'i jireen maraakiibta ka soo shareecata badda Mediterranean-ka. horraantii qarnigii 19aad badmareenada Soomaalida waxa ay u diideen inay galaan dekadaha ku yaala xeebta iyagoo ku howlanaa ganacsiga Cadan iyo Moocha ee ku xeeran Yemen iyagoo adeegsanaya maraakiibtooda. sababo la xiriira soo noqnoqoshadii maraakiibtii ku qalbintay badda khiyaanada badan ee Gardafuul. Sultan Yusuf Ali Kennedy oo ka tirsanaa saldanada Hobyo oo iyaduna gacanta ku haysay qayb ka mid ah xeebta ayaa markii dambe tanaasul siisay milkiilaha Hotel Francis ah oo fadhigiisu yahay Cadan iyo sarkaal hore ka tirsanaa ciidanka Faransiiska si uu Cape Gardafuul uga dhiso leed kaas oo calaamad u noqon lahaa maraakiibta. raasamaalka mashruuca waxaa kor u qaaday shirkad ku taala Marshalls, laakiin heshiiska ayaa markii dambe burburay. Ingiriiska ayaa ku wareejiyay madaxbanaanida Talyaaniga gobolkii lagu murunsanaa ee ku yaalay Cape Gardafuul ama meesha imika loo yaqaano Raas Caseer 1894. laga bilaabo 1899 Talyaaniga waxa uu sameeyay daraasado iyo sahano faahfaahsan si loo dhiso leyd. waxa uu mashruuciisa ugu horeeyay ee la taaban karo uu ahaa mid soo baxay 1904. Talyaanigu waxa uu doonayay qarashka dhismaha iyo dayactirka leydka mustaqbalka ee ay wadaagi doonaan awoodaha badda oo wax badan ka faa'iideysan doono leydka cusub. khayraadka ugu weynaa ee Raas Caseer ayaa ahaa beeyada. boqortooyadii Majeerteen ee uu ka araminayay Cusmaan Maxamuud waxaa la weeraray bartamihii qarnigii 19aad sababo la xiriira loolan xagga awoodda ah ee dhexmaray isaga iyo ina adeerkii hamiga lahaa ee la odhan jiray Yusuf Ali Kennedy. ku dhawaad dagaal 5 sano qaatay ayaa looga adkaaday aakhirkiina waxaa lagu qasbay in loo masaafuriyo Yemen. 10 sanadood kadib ee 1870 Kennedy oo ka soo laabtay jasiiradda Carabta iyagoo ku xidhan xarigo iyo koox ka mid ah saraakiishiisii ayaa gooni loo soocay iyagoo kaashanaya kaalmo iyo hub markaas ka yimid boqorka Majeerteen ee Cusmaan. waxa uu ku guuleystay in uu ka awood roonaado beelaha Habiye
ama imaameedka ama imaamyada hiraab ee maxalliga ahaa. waxa uuna 1878 aasaasay saldanadii Hobyo ee lagu magacaabi jiray Obia, taas oo ahayd mid gooni isu taag ah sida laga soo xigtay warbixino rasmi ah ee soo baxay 1914 oo uu wakiishay Regio Governa. saldanada Majeerteen waxa ay joogteenaysay dhaqdhaqaaqyo ganacsi oo adag ka hor qabsashadii Talyaaniga ee sanadka ku xigay. Sultanate-ka ama saldanadii ayaa la sheegay inay kalluunka iyo beeyada ay dhoofin jirtay 1924 boqortooyada Majeerteen ayaa liiskeedii dhoofinta uu ka koobnaa 16 shay. bal arag gobolada Puntland bal arag barwaaqo siday ku tahay bal arag dadkuna u baraarayo balaya una abihi bal arag. Puntland waxaa la aasaasay 1998 imika waa maamul goboleed hoostaga dowladda dhexe ee Soomaaliya. salaadiinta ka arrimisay boqortooyadii Majeerteen waxa ay kala ahaayeen Suldaan Cismaan Bahdir, sidoo kale loo yaqaanay Cismaan ibn Muhammad, Suldaan Yuusuf oo ahaa Bah Yacquub, sidoo kale loo yaqaanay 3 Suldaan Maxamuud, Suldaan Cismaan Maxamuud, 4 Suldaan Cismaan, Suldaan Maxamuud, Suldaan Cismaan. bal arag ida iyo mudug bacaad weyn iyo goldogo beledka gaalkacaya iyo beriga xulaha ku nool bal arag. halkan ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkayaga maanta inta aynu maalinta xigta iyo qaybteena afraad ee aan uga warrami doonno Xaafuun. waxaan idinku dhaafayaa maalin wanaagsan. rukumo channelka nagas si aad u hesho macluumaad ku xiiso geliya inta ka horeyso nabadgelyo ayaan idinku dhaafay. bal arag Boosaaso iyo